bismillahi raxmaani raxiim. Horta marka koowaad dadka Soomaaliyeed ma waa la idinkuna isu qaadanina inaa waalantiin marka haddii la yiraahdo saddex qof oo kamid ah qof waalan dad badan oo halka ku jira waxay noqonayaan dad badan oo waalan marka dhammaan dhalinyarada ka kala socota gobolada iyo saaxiibadeeda kale ee halkan ku sugan iyo dhalinyarada iyaguna halkan jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdisaaqudin waxa ka socda gobolka Nugaal waxaan uga mahadcelinayaa saaxiibka Cabdullaahi Bisaas inuu ugu casuumay barnaamijkan anoo runtii safar soo galay inaan dhalinyaro badan oo reer Puntland ah oo halkan joogta inaan arko kuwaas oo fikrado kala duwan iyo ahdaaf kala duwan oo horumarineed ay ku jirto inta kadib shuruuc waxaan baarsan yahay dad badan baa ka sheekeeyay mar rabo inaan wax badan ka hadlo waxaan rabaa dhowr qodob inaan dul istaago oo ku saabsan dhalinyarada runtii muddo 2 sano hadda ku dhawaad waxaan ku soo dhex jiray barnaamijkan dhalinyarada iyo ololihiisa waxaan ka fahansanahay waxyaalaha caqabadaha oo hortaagan fursadaha ay haystaan iyo sida uga faa'iideysan leeyihiin iyo ruuxooda waxyaalaha gadaal u haya inay ka gaaraan horumarka waxa haysataan in maanta fursad waxbarasho inaad samaysid waxa haysataa inaad samaysid fursad ganacsi waxa haysataa inaad noqotid xirfadle sida daraadeed waxa laga yaabaa adoo inta haya inaadan misna aadan ka faa'iideysan maxaa yeelay gobolada kale ee dalka iyo gobolada amaad joogtaaniin dhalaankiina wax baranaya quruxda badan waxa laga yaabaa inayna haysan isku fursad inayna haysan sida daraadeed fursadda ay haysatid waa inaad ka faa'iideysatid maxaa yeelay waxa la yiraahdaa fursadu marba ku soo martaa markaasna hadaa ka faa'iideysan weydid iyada ayaa ka faa'iideysanaysa marka dhalinyaro inuu isku dhimaano wax isweydiino wada tashadno maxaa naga khaldan iraano isku dhimaano waa muhiim laakiin markaynu isu nimaano oo aynu kala tagno ba waxay noqonaysaa waxaan inta la yimi oo kaamirada isku sawiray laga tagay laakiin haddaynu noqono kuwa isku yimaada oo wax wanaagsan kala dhaxlo oo wax wanaagsan soo saaro oo wixii ay soo saaraan noqdo biri ka maana wax miro dhala wuxuu noqonayaa wax guul aynu ka gaarno marka ha noqdo shirkeena aan baan rajaynayaa inuu noqdo shir wax aynu ka hadalay uu noqdo wax miro dhal ah oo wax ka soo baxaanin waxaan kaloo rabaa dhalinyaradu inay noqdaanin hal abuurayaal inay noqdaanin la yimaadaanin hal abuur kala duwan halkii ay ku mashquul lahaayeen waxyaalo kale oo ay sameyn lahaayeen runtii waxa ay muuqda dhalinyaro badan oo la yimi hal abuur kala duwan kuwaas u muuqda kuwa guuleysanaya mustaqbalka dhow iyo midka fogba haddii hal abuur sameysaanin waxa ay ka hor imaanaya caqabado badan kuwaas u baahan inaad ku xisaabtataan caqabadahaas waxa ay noqonayaan inay dadku kirtisgareeyaan ama ay kugu maagaanin ina waxa alla timi uu yahay wax mashquula ama cid gaar ah ay danka leedahay 2 sano ka hor baan waxaan hindisnay barnaamij la yiraahdo ku ceel waxa bartay dhulkaaga hooyo ilaa hadarna ku hawlanahay waxaan soo aragnay qof kasta oo dhalinyaro ah oo hal abuur ah waxa caqabada ee uu hortaagan yahay maxaa yeelay dadku waxay ku leeyihiin mashruuc ayaale yaa u shaqeysa xagee ka keentay maxaa ka faa'iideysa interest kugu jira muxuu yahay maxaa yeelay dadkeena waxa ku yar inay aaminaanin inuu qof u shaqeeyo dadkiisa iyo dalkiisa inuu qof u shaqeeyo ana mid naga maqan waana mid aynu horumar ku gaari karno marka aynu dhamaateen isla garanayno inaynu noqono dad u shaqeeya bulshada iyo dalkooda waana sababta lagu kala tagay oo maanta ay dadku ku horumareen oo arkaysa wadamo qurux badan oo kaamiro qurux badan laga soo sawirayo waxa dhistay dadku leeg aan ka maskax badnay ka cilmi badnay laakiin fikirkay dhabeena ka dhabeeyay midda inay wax baranaysaan jaamacada ku wada jiraan ka qalin jabinaysaanin midna ayna la imaaneen isbedel muuqda ayaa u baahan iyaguna in la weydiiyo su'aasha idinkuna ay isweydiisaanin sanad kasta intaas oo arday baa soo qalin jabisa jaamacadaha gudahana ka baxda misana isbedel ma keenayaan maxaa yeelay marka waxbarasho laga hadlayo baa waxa la yiraahdaa education is only way to use to change in the world waxbarashada ayaa hubka kaliya ee la isticmaalo si loo bedelo adduunka sida daraadeed waxaanu wax u bedeli laanahay waanaynu guryaheena marka ku noqono aynu isweydiinaa marka la timaadaan hal abuurayaal kala duwan ama dalkiina ugu shaqeynaysan waxa la ka rabaa inaan isdhiibin maxaa yeelay marka isdhiibto waxa u dhawaanaysaa inaad guuldareysatid guuldaraduna waxay ku badaysaa inaad lahaan adkaysi inaad lahaan oo wixii maxaa yeelay marka waxa abuuraysid nolosha ayaa waxa ku lamaansan challenge waxa la yiraahdo iyo qofku inuu sameeyo caqabad inuu la yimaado sida daraadeed ayaa inaa markasta aad noqotid qof leh hami sare iyo hogaamin fiican dhalinyarada iyo qabiilka runtii qabiilku wuxuu noqday wax la ku practice gareeyay markasta laga dhaadhicinayo reer qasax baa tahay reer qurac baa tahay reer hebel baa tahay laakiin muhiim ma ahan qabiilku waxaan xasuustaa mar aan safray inta wadada ku jiray baa waxa la weydiiyay 7 jeer qabiilkayga
therefore waxa isweydiiyay sababta la weydiinayaan aniga qabiilkayga waxa ay tahay maxay sameynaysaa haddaan dhowr reer qasax baan reer qurac baan wax muhiim ima sameynayso laakiin waxa ay sameynaysaa yaa tahay qof Soomaaliya tahay aqoonsigaaga keen sax xaga u socota xaga in sidin bal lagu furay laakiin kadib baan waxa ogahay sababta qof Soomaaliya qabiilkiisa loo weydiinay inay tahay casriyeyn qabiil waxa loo yaqaan oo in adiga lagu sii casriyeynay maxaa yeelay maanta hore marka aad tiraadid saasaan waxa kugu sii dhiirigelinaysaa dhowteen aad tiraadid niyo hadhow xataa qof badan oo qabiilka aqoon inuu yiraahdo si gaar ah aan u xifdiyo iyo maaragtay qabaalaadka iyo maaragtay waxyaalaha kala duwan taasna waxa rabaa inay ka fogaataan oo noqdaan dad han sare leh inaan noqotaan dad han sare leh inaan noqotaan baayidna muhiim mustaqbalka ay wayaalayna dhigi doonaa waxa tiin biri mustaqbalka biri ayaa tiin baa layna dhigi doonaa intiinaan mustaqbalka biri baa taa marka layna ku yiraahdo waxa dadka weydiisaan inuu ku yiraahdo mustaqbalka biri baa tiin yaa mustaqbalka maanta yaa ahda maxaa yeelay mustaqbalka biri ma dhamaanaysa birina lama gaarayo adoo biri ku jira way naftu ka dhacaysaa therefore waxaan xasuustaa markaan dugsi dhexe dhiganayay baa oday ka socday institution waxbarasho uu noo khidbay daabuurka wuxuu nagu yiri mustaqbalkii biri baa tiin u bixi dalka tiin waa soo koreysaan galaaska afraad secondary markaa fadhinay noo yimi mustaqbalkii biri baa tiin jaamacadana soo dhameeyay barnaamij uu nimsawil oday wuxuu ku khidbaynaya waxa tiin mustaqbalka biri adeero cirra naga soo baxday waan mustaqbalka biri sheegaysa goorma ka baxaynaan sidaa daraadeed mustaqbalka biri hadda aqbashaa waxa aqbasheen maxay deena mustaqbalka biri ahaan sabirina ma gaaraysan inaa saa ku saa wayna aamintaan inaad tiin mustaqbalka maanta iyo kambiriya ka saa dama maartay waddankaana idinkaas kale ra'iisul wasaare wuxuu yiri dhalinyaradu wayna mustaqbalkooda dhexdhexaad ka noqon therefore waxa la rabaa inaa ka ramaysaan maxay hal ku dhigida inaa ka dhawaysaan baa la rabaa waxa kale oo ka dhamaynaysan hadalkii Cabdulle Cali Gaas markuu sharaxa uu sheegay uu yiri wayna noqotaan dad isku tashada keen hadii lagu yiri aduu isku tasho wayna isku tashatid bay ka dhigan tahay therefore mustaqbalkeena dhexdhexaad ka dhiganina idinkuna isku tashada si ay yoolalkiina iyo ahdaaftiina aad u gaartaan waxaan rajeynayaa shirkaan inuu noqdo shir wax ka soo baxaan shir qaran oo dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada Puntland ku joogna dhalinyarada Soomaaliyeed ay isugu imaanayso inaynu isugu nimaano wax iska weydiino aayaheena iyo masiirkeena aynu ka wada tashano marka waxaan leenahay insha Allah biidnillaahi kariim shirkaasna uu dhici doona shir qaran waa la isugu imaan doona dhalinyaraduna way ka kici doontaa baraaruga وهذا البند سوق جوينيا أعرف دورشة بنتلان وهذا السوق هذا السوق هذا هكي لنا قفين إنه كوير هذا وحاسنا استاجر هذا قصة وحاسة لكن وحكي دقيقة ستانقفكو ستانسدو وحين قبل الحاو dadku ma dhageystaan waxaas hebel waxay ku taageerayaan waxba haystaa hebel waa halkay ku yimid hebel dawlad baa wata laakiin adiga waxba haysataa waxa haysatana maxaa la yiraahdaa dhul udug baa la yiraahdaa dhul udugna wuxuu leeyahay maxay source buu leeyahay adiga in lagaaga faa'iideeyo adiga ka baday dhulka marka waxa ka dhageysataan qorshihiisa iyo balaynkiisa horumarineed ee uu ku aadan waxa uu qabanayo qorshihiisa hadduu ku qanciyo ku taageer laakiin ha ku taageerin reer qansax iyo adeerkayba saaxiibayiin iyo waaba uu xil u magacaabay iyo xoogaha buu haystaa taas waa dhamaatay waana mid caalamku la isku taageero oo ah maanta in qofka ay ku socdaan in fikrad in la isku taageero fikradaas oo aan noqoto qofku inay ka sameeyay wax la yiraahdo ideology qofku marka waa aaminsan yahay marka noqdo dad fikrad ah oo ismaada oo fikra sida dad wax bartay aad baan ka mahad celinaya dhalinyarada quruxda badan ku faraxsanahay fursadan maanta ka faa'iideysto waxaan badoogaadinayaa saaxiibkay Cabdullaahi Axmed oo runtii aaminsan inuu yahay shakhsi ka soo dhalaali kara horumarka dhalinyarada maanta Soomaaliyeed iyo Puntland kuna hawlan barnaamij u muuqda inuu noqon doono midka mustaqbalka mar oo guuleysta qofkaas oo kale waxa la rabaa in la garab qabto oo la taageero oo waxa uu baahan yahay lagu xoojiyay cudud baan nahay cududana hadaan midaynana waa ku guuli karnaa hal abuur kasto inaan ka soo dhaxbaxa waxa la rabnaa inaynu dhiirigelino wax kasto hiil iyo hoob ugu baahan yahay aan ku baraarujino insha Allah garabkaaga nahay oo taageerina insha Allah bidnillah kariimadina waxa ka rajayna inaa hore u socotid ilaahayna uu kula garab galo maartay waxa bulshadana u haysatin assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala